الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي أفرية طبناد يا كتاب كني الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله waxaan ku jirnay qaybtii cuquubaadka iyo dhibaatada ka soo haleelaysa ruuxa dunuubta iyo macaasida. waxaa ka mid ah dembigu wuxuu zuuliyaa nicmooyinka ilaahay ku siiyey, wuxuuna keenaa niqamku waa waxyaabaha cuquubaadka ah iyo dhibaatooyinkana wuu keenaa. haddaba qofka kama zuusho nicmo, sideedaba nicmo ilaahay ku siiyo ood haysatay kama zuushaa la yidhaahdaa ilaa dembi unbaa nicamtaa qaada. mana ku dhacdo ruuxa niqma oo cuquuba kuma dhacday ayaan darro kale ilaa dembi unbaa keena. cali bin abi aalib radia allahu canhu ardaah baa wuxuu yihi maa nazala balaa-un ilaa bidembin walaa rufica balaa-un ilaa bitowba. ma timaado belo iyo dhibaato ruuxa kuma dhacdo ilaa dembi unbaa keena. qofkana lagama qaado dhibaatadii haysatay ilaa bitoobo unbaa lagu qaadaa. walidaalika ayaa xitaa laba ruux oo isku dhacsan oo xumaani ay ka dhaxayso, rasuulku xadiid kaloo saxiixa waa kuu ku sheegay laba ruux oo saaxiibo ahaa oo isku fiicnaa ma kala tagaan ilaa dembi unbaa jira, ama labadoodu ka dhacay ama midkood buu ka dhacay, kaasaana kala geynaya. allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay fi suurati shuura wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kathiir. waxaa idinku dhacaya oo masaa'ibta ah waa wax idinku aad keensateen, marka waa adigu waxaad la timid bay musiibada kugu dhacaysaa. wax badannana allaaba kuu dhaafaya subxaana. haddaba rabbi subxaanahu watacaala ma bedelo baa layidhaha nicam ilaahay uu ku siiyey kaama qaado ilaa inaad adigu bedesho naftaadii aada bedesho ma ogi. naftaadii fiicnayd baad xumaan u bedeli, marka nicamtiibaa adna ku dhaafaysa. daacadii ilaahay buu qofku wuxuu ku bedelayaa macsiyo, shukrigii ilaahayna wuxuu ku bedelayaa inuu ku kufriyo oo nicamtii jaxdiyo. asbaabtii alla raalli ahaanshihiisa keenaysa wuxuu ku bedelayaa asbaabta cadhada alla keenta. haddii marka qofku arrinkaas isagaa uu bedelo, isagana waa loo bedelayaa, waa jazaan wifaaqa. wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid. haddii ruuxu macsiyadii haddaba intuu soo laabto toobad keeno oo macsiyadii uu daaca ku bedelo, isagana ilaahay baa cuquubadiibaa caafiya loogu bedelayaa. ilaahay baa cuquubadii garab marinaya, dulligiina cizi iyo sharaf baa loogu bedelayaa. ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim. waxaa ka mid ah dunuubta cuquubaadka ka dhashaa, qofku wuxuu la kulmayaa ruucbi, argagax iyo cabsi. mar walba qofka caasiga ah qalbigiisa cabsi baa ku jira. cabsidu maaha tu rabbi laga baqaayo, waa tu waxyaabahan kale adduunka dhan u qofku noloshu ka baqayaa, dadku ka baqayaa, waxba kuma kalsoona, cabsi baa haysa. falaa taraahu ilaa khaa'ifan marcuuba, mar walba waa cabsanayaa. daacada ilaahay waa xisni, waa dayr weyn. qofkii gala dayrkaana aaminiintu ku jira, waa qof aamin ah. cuquubada adduunka iyo tan aakhiraba aamin buu kaga yahay. qofkii ka baxa xisnigaas na wuxuu noqonayaa makhaawif iyo cabsi baa dhinac walba kasoo wareeraysa. qofkii allah subxaanahu watacaala ateeca, khoofkaasi wuxuu u bedelmayaa ammaan buu isu bedelayaa. haddaba qofka caasiga ah arki maysid ilaa qalbigiisu wuxuu la duulayaa, cabsi buu la duulayaa. dabayshu hadday dhaqaaqdo waa cararayaa. albaabkiibaa la taagan yahay buu leeyahay, anaa la idoonayaa buu leeyahay. kulla sayxa, wax walba wixii dhacay isaga inuu ku socdaan buu arkaa. wa kullu makruuh, wax kasta oo xunna in isaga loola jeedo ayuu arkaa. qofkii allah ka baqa subxaanah, allah waa nabadgelinayaa, shoox walbana wuu ka nabadgelinayaa. qofkan allah ka baqinna wax walba waa ka baqayaa. ciyaadan billaah, ilaahay baan ka magan galay. haddaba walaalayaal, taasina waa arrin iyaduna sugan oo xaqaa'iq ah. wax badanna aada aragtay oo dadka tusaale hadda mithaal keliya rabaa inaan soo qaato. dadkan
markay dadka hadda wadamada reer galbeedka la joogo dad baa dadka dabagala oo dadka culimada iyo dadka ahlu diinka iyo dadka masaajida ku tukada la daba dhigaa. dadkaasi markay iyagu xumaan sameeyeen oo hadday rabaan jaajuusnimo ku dhaceen oo diinta ilaahay ka fogaadeen ba iyagiina cabsi baa gashay. marka in la daba taagan yahay mar walba habeen iyo maalin iyaga naftoodu ma degana, cabsidii baa dhinac walba ka haysa. marka ilaahay subxaanahu watacaala bal u fiirso mithaal labaad haddaan keena, dadkii asxaabu rasuulillah iyagoo tiro yar bay gaalo tiro badan isaga hor imaan jireen. intaa yari carari mayso, laakiin inta badan baa carari. maxaa jira? cabsi baa ku jirta, kuwana qalbigooda amni baa ku jira. ilaahay subxaanahu watacaala adduunya aakhira baa amni hayna siiyo. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلى اللهم وسلم على